madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday dadka reer Rwanda inay ka cafiyaan Faransiiska qaladaadkii lala xiriiriyay xasuuqii dhacay sanadkii 1994 oo ay ku dhinteen 800,000 oo qof dagaaladii dhex maray qowmiyadaha Tutsiga iyo Hutuga. isagoo ka hadlaya xuska oo ka dhacay caasimadda Rwanda ee Kigali ayaa Mr Macron waxa uu qiray in Faransa aysan dhag jalaq u siinin digniintii ku saabsaneed xasuuqaasi ku soo food lahaa, laakiin waxa uu sheegay in dalkiisu aanu gacan ka geysan dadka halka lagu laayay. koox xasuuqa ka badbaaday ayaa sheegay inay ka xun yihiin raaligelin la'aanta Faransiiska. Mr Macron waxa uu sheegay inay ka garaabayaan wixii dhacay. 27 années de distance amère se sont écoulées. waxaa ka soo wareegtay 27 sano waqti lagu qiyaasay 27 sano oo fahamsanaan la'aan ah iyo isku day daacadnimo iyadoo ay jirtay, laakiin waxaasoo idil waxay noqdeen waxaan lagu guulaysan. taariikhda 27 sano oo dhibaato aan kala go' lahayn shakhsiyan waxay ii leedahay xusuus murugo leh. haatan innagoo samaynayna isbihinbihin iyo xushmad dhankaaga waxaan garwaaqsaday mas'uuliyadeenna. Je viens reconnaître nos responsabilités.